ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban ayaa jeediyey hadal aan laga filayn oo uu ku diray xulafada gaashaanbuurta NATO oo dalkiisu uu xubin ka yahay. ra'iisul wasaare Viktor Orban ayaa sheegay in aan lagu tashan karin taageerada NATO xilliyada adag ee dagaalada, isagoo waraysi gaar ah siinayay idaacadda maxalliga ee Kozat. isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi sidan: India miniszterelnökével is. si dhaba haddaan uga hadlo ammaanka dalkeenna, NATO waxayna ilaalin doontaa keliya marka aan annagu isdifaaci karro. ciddii gacmaha isku laabata oo ku tashata inay NATO difaaci doonto way jabaysaa. xitaa NATO kuwaas uma baahna, waayo waa daciif oo waxba kuma soo kordhinayaan. sababtoo ah NATO maaha dhufays aan weligeed la jabin karin. NATO hadda ayay maraysaa imtixaankii koowaad. mana rabo faahfaahin intaas ka badan inaan ka sheego. waxaase tusaale inoo ku filan waxa dariskeenna ka socda. qof kasta oo ay la tahay in gaashaanbuurta NATO ayna difaacayso waa khaldan yahay, meel fogna waxba kama eegin. waxaan odhan karaa reer Hungary iyo dawladdooduba way nasiib badan yihiin oo way caqli badan yihiin, sababtoo ah way ka sii tashteen oo way ka sii gaashaanteen mar hore waxa hadda ka socda Yurubta bari, iyo in tabardarro ay ku iman karto gaashaanbuurta NATO. sababtoo ah dawladda Hungary waxay ku guulaysatay inay duwahabayn ku samayso ciidankeeda iyo nidaamkeeda difaac wixii ka dambeeyey sanadkii 2010. taasina waxay ahayd go'aan fiican iyo saadaal fiican oo reer Hungary ay ka bixiyeen waxa hadda soconaya. maantana waxaan ku faanaynaa in dawladda Hungary ay awooddo inay isdifaacdo keligeed iyadoo aan cidna isku hallaynayn, xitaa naatada aan ka tirsannahay. sidaasoo ay tahay dawladda Hungary siyaasaddeedu waa inay ka fogaato dagaal intii macquul ah. sababtoo ah dawladda Hungary hawl iyada u taalla maaha inay kala saxdo siyaasadda adduunka iyo waxa soconaya, inay ruushka ku tiraahdo waad saxan tahay ama waad khaldan tahay, ama inay garab siiso cidda saxan ama cidda khaldan. waxaasoo dhan wax noo yaalla maaha. dawladdan hoggaamiyo muhiimaddeedu waa difaaca danaha dalka Hungary. haddii aan ka jawaabo su'aasha aad iga weydiisay sida aan u arko cunaqabataynta la saaray Russia, tallaabooyinka laga qaaday ruushka, anigu dhinacyo badan ayaan uga fikir duwanahay, lamana gabbanayo oo waan caddaynayaa. anigu aad ayaan u dhaliilsanahay cunaqabataynta Yurub iyo saaxiibadeed ay saareen ruushka, sababtoo ah waxaan qabaa in aad loogu degdegay in ruushka cunaqabatayn la saaro iyadoo siyaabo kale wax loo xallin karay. sababtoo ah cunaqabataynta ruushka lagu soo rogay waxay keentay halis dhaqaale oo degdega, waana mindi laba af leh oo labada dhinacba wax u jari karta. cunaqabataynta ruushku waxay si dhaqsaa u saamaysay dalkeenna, sababtoo ah sicirka shidaalka ayaa cirka isku shareeray, arrintaas oo saamaynaysa nolosha malaayiin qof oo reer Hungary ah. siyaasiyiintu arrimahaas muhiimka ah ee nolosha shacabkeenna khuseeya ka fakari maayaan, laakiinse maalmahan waxay aad noogu cambaaraynayeen inaan Ukraine u diidnay inaan hub ku taageero. dawladda Hungary mowqifkeedu waa cad yahay, mar kalena waan ku celinayaa, danteennu kuma jirto dal NATO ka tirsan inaan hub siino, iyadoo dawladihii naga awoodda badnaa quwad ahaan aanay taageerin Ukraine. mana aha arrinna la ku dacaayadayn karo. waan ka xumahay dhibta soo gaartay Ukraine, waana la dareemaynaa xanuunka, laakiinse dawladda Hungary hub ma siinayso kuna taageeri mayso Ukraine. laakiinse wax ka qiimo badan ayaan siinaynaa Ukraine. waxaan ku taageeraynaa gargaar bini'aadannimo oo aan gaarsiinayno ilaa galbeedka Ukraine. sidoo kale waxaan martigelinaynaa qaxootiga Ukraine muddo 3 bilooda. intaa wixii ka dambeeyana waa ay shaqaysan doonaan. haddii aan kaftamo, waxaan odhan karaa Hungary waxa ay dhaantaa oo ay ka fiican tahay Germany oo u ballan qaaday Ukraine inuu ku taageerayo hub, gaar ahaana Strela oo ah gantaalaha fudud ee garbaha laga rido. laakiin nasiib darro, hubkii Germany uu u diray Ukraine waxay noqdeen wax aan shaqaynayn, sida ay warbixino badan sheegeen, sababtoo ah gantaalahaasi waxay ahaayeen kuwo muddo dheer iska yaalay goobaha kaydinta ama bakhaarada
hubka lagu kaydiyo halkaas oo ay ku daxalaysteen Ukraine markii loo geeyey waa ay u shaqayn waayeen si kastaba ha ahaatee Hungary si dhab ah ayay Ukraine ugu taageeraysaa gargaar bini'aadanimo waxayna Hungary badbaadinaysaa nolosha malaayiin reer Ukraine waxaan cambaaraynayaa dagaalka gaar ahaan kan hadda ka socda dalka jaarkeena waxaan leeyahay maya rabshadaha uma baahnin rabshado iyo dagaal iyo wax kasto aan muhiim ahayn laakiinse waxa ugu muhiimsan waa in Hungary ay ka fogaato iska horimaadkan hubaysan si kasta ha laygu dhaliilo in xukuumadda Hungary ay taageero military siin weyday Ukraine taas waxba uma arko dhaliilahaas oo dhan sababtoo ah waxaan ahay qof garanaya sida loo dhaqmo xilliyada adag waxaan ahay qof garanaya mas'uuliyaddii loo doortay oo ah inaan diiradda saaro maxaa dan u ah shacabka Hungary waxaan hubaa inay ii cudurdaarayso cid kastoo dareemaysa waxa aan dareemayo mas'uuliyad ahaan iyadoo waqti adag lagu jiro anigu laba wajiilo noqon maayo haddaan runta sheegayo anigoo waaqaca jira abbaaraya oo aan ka fakarayo waxa danta u ah Hungary intaas haddaan ku soo koobo waraysiga dhinacyada badan taabanayay ee uu bixiyay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary tan iyo intii uu bilowday weerarka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine dadyow badan indhaha ayaa u furmay oo waxyaabo badan ayay dagaalkan ka fahmeen waa Cabdirasaaq Jubbo intaan dib u kulmayno nabadgelyo De 3 hónap után el kell menni a magyaroknak is vagy közmunkára, vagy